oo shilinka iyo sarifku uu noqdo wax xadidan dawladdu waa inay tallaabooyin qaado tallaabooyinka ugu horeeya waxa weeye macaamilka faraha badan oo niman yar ay ka faa'iidayaan oo dekada ka socda horta waa inaan joojinaa labo lacagta sahalka isu bedeshay oo kaliftay qofkiiba inuu waxba qaadan waayo shilin Soomaali isticmaalo waa iyadan inaan xadidno dollar baan ku xadidnay haddii loo baahdo waa laga kordhin doonaa hadda sida ay ku timaado daraasada si macaamilku u socdo waxa kale oo inta u dheer dawladda hadda shilinkii qiimo la jaray laakiin xogta waxaan ku haynaa haddaad dollar wadatid waa lagu sarrifayaa laakiin haddaad dollar u baahatid inaadan helayn iyadana tallaabaan ka qaado bangiyada dawladda iyo bangiyada shirkadaha xawaaladaha inta halka fadhida way maqlaysaa wixii berri ka dambeeya waa inay furaan albaab oo sarifla ah waa inay sarrifaan iyagu lacagta ninkii dollar haysta oo wax u sarrifo waayo bangiga dawladda ha tago berri wixii ka dambeeya waxaa iswaraysanayna nimanka ganacsatada oo sariflayaasha iyo kuwa importers oo isku xirmay hadday moodaan inay dadkaan afduub ku haysan doonaan annaga ka bixinayna kuwa raashinka soo dejiya hadday wax iska bedeli waayaan meelahay ka soo dejiyaan amba waa aqaana waa dadkan aan u dirayna waa la soo dejinaya iyagana laysamadana waa ka qaadayna dalkan wax u joogsanaya male dadka dantiisa ayaan ka shaqeynaa annaga nin ganacsado ah anugu ganacsadaan ahay shirkadaha ka shaqeeya laakiin iyadaa ugu hor xiraya hadday raaci weydo nidaamka dadka dantiisa ku jira maxaa yeelay mas-uuliyaddu iyo dantaada gaarka ah inay isku xirmaan lama rabo waxaa loo baahan yahay waxaa loo danaynayo waa bulshada waxaa loo danaynayo waa dalka waxaa loo danaynayo waa dhaqaalaha marka waxaan u baahannahay dadka masaakiinta ah oo intii waxaanan sheegayn lagu soo bixiyo la kicinayo oo mararka qaarkood in kaloo nadiif oo caadifadda markay arkaan iska raacaya inay runta ogaadaan oo arrintu inay saas ahayn ogaadaan marka waxaan u baahannahay in caqligu shaqeeyo wixii aad u baratid haddii ay dawladdu waa koraysaa barti yaqaan noqon mayno shalan saa ahaan jiray la odhan maayo waxaa la rabaa shalay waa shalay dalku horey buu u socdaa caqabad hadday timaado waa inaan ka gudubnaa laakiin waxaan u baahannaha inaan si wada jiro uga gudubno tallaabooyinkaas sababaha u qaadayno waxaa ugu muhiimsan in dhaqaalaha waddanku uusan ku dhicin meel khatar ah sababta dollarka aan u xakameynay waxaan is leenahay waxaa ku jira maslaxad waxaan rabnaa wiilasheenna shaqaalaha iyo ciidamada ah in ay waxaa socda hadda saad og tihiin ciidamadii mushaharooyinka waa loo kordhiyey waxaa hadda gacanta lagu hayaa shaqaalaha in lacagta loo kordhiyo lacagahaas kordhaya horta dadkay ka imaanayaan oo canshuurta bay ka imaanaysaa haddaan dadka dhaqaalahooda kor loo qaadin canshuur ma bixin karaan haddaan dadkaas canshuurtaas soo baxday shaqaalaha mushahar ku filan la siina noloshu ma hagaagayso dhaqaaluhuna ma kobcayo marka horta dawladdan waxyaabaha ay xoogga saarayso si nolosha magaaladu ay u noqoto nolol degan waa in qof walba oo ku dhaqan deegaanada Puntland uu awood u heli karaa shaqada uu shaqaysto waxa uu ka helo inay u goyn karto nolosha iyo maciishada markaa jirta anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir